من أنت يا تهي ما استقانا أو ما إسبرتي قفكو بالآدم كوحو كوبين هاي اللبا وأهانشيو كريد إي أهانشيو قدير أهانشيو هاي كريد وانو أقانا مقاعاقا حقت كتمي عدة هاي نوع ذو إيكتا بلسي waxaa jira ahaanshiyo gudeed oo qofka loo baahan yahay inuu is ogaado waxana ogaan kara isagoo kaliya ahaanshiyaha gudeed waa ta Ilaahay quraankiisa ku tilmaamayo leeyahay wa fi anfusikum afala tubsirun miyuudan isku fiirsanay hoos miyada isku eegin ma baratay waxaad ku fiican tahay sama baratay waxaad kulligeed ku hooseyso ma la socotaa falalkaaga iyo ficilada aad sameynayso xagga ku wadaan oo ma ku baraarugsan tahay ma tahay qof naftiisa saamaxa oo isku dulqaata oo ilaahdo war haddaad maanta khalad ka dhaco waa dambaabtay sama tihid faajir ilaahina waad noqon kartaayo dambi dhaafaad weydiisan kartaa ay qofka maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo qofka haddaba waxa kale oo looga baahan yahay inuu ogaado ahaanshiyaha inuu xaaladda taagan uu joogo inuunan ku mashquulin tagto iyo timaado balse hadda joogtada inuu la joogo uu hadda ku noolaado xaadirka la qabsado qofka waxa looga baahan yahay inuu is aqbalo oo isku qaato siduu yahay midabkaaga xaqid ka soo jeedo ciidaad tahay nooca tahay waa inaad aqbashaa oo isku qaadataa ilaahay wuxuu ku abuuray fi ahsani taqwiim waqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim hadaba sida ugu quruxda badneed baa lagu abuuray marka sida ilaahay ku doortay doorashada ilaahay ku qana oo isku qaado oo isku aqbal waxa loo baahan yahay qofku saamaxaada inuu barto qofku waxa loo baahan yahay emotional intelligence inuu yeesho oo u fiirsado dareemihiisa iyo xagga u wadaan xagga u socdaan xagga ka soo burqanayaan ka imanayaan qofku haddaba wuxuu baran karaa inta iyan ka badan inaad barato awooddaada inaad barato awoodda la jaanqaadka inaad barato nafcanaanashada nafcagarashada iyo wixii la halmaala qofku inuu ogaado awoodihiisa qarsoon uu kor isku soo qaado qofku inuu ka kabto dhacdooyin fara badan oo hore u soo maray haddaba waxaan kugula talinayaa barnaamij aad u qiimo badan oo la yidhaahdo kabasho kadeedyada iyo kurbooyinka sida kadiska ah u dhaca waxay qaataan waqti in ruuxu ka kabto ama kashiisa rajo ku beeranto xilliyada aad marayso imtixaanada nolosha way adag tahay inaad aragto iftiinka iyo ifafaalaha fudayd kaaga dambayn doona culayska aad ku sugan tahay erayada aan taxanaha kabasho ku soo tabinayo waxaan ugu talagalay inay laabaha ladhka ka siibaan laxawga ladnaanshiyo iyo libin gudeed ku beeraan waa guubaabo iyo gacan qabasho waa tilmaamo tarminaya tognaanta humaag qurux badan oo timaadadu soo sido si kasta oo ay taagantu adag tahay barnaamijkaasi walaashan xamda xuseen inoo samaysay oo qofka u ah barbilow uu ka bilaabayo inuu barto naftiisa haddaba isbaro si aad u hesho horumar deganaanshiyo raaxo nafeed